waa 9 bisha 8 Agoosto sanada 2021 waxaan ay Cumar Guux waxaad ku soo dhawaataan wararka dunida qodobada caawan idinkugu soo gudbin doona hadii Rabbi qadarana waxa qayb ka wasaaradda diinta iyo waqaafta xukuumadda Soomaaliya oo sheegtay in waxyaabo badan ay ku soo kordheen Muqdisho ciidamo dheeraad ah oo la geeyay deegaano ka tirsan gobolka Mudug madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland oo gudoomiyay shirka golaha amniga dowlad goboleedkaasi ku dhawaad 10 sarkaal oo tababar loogu soo xiray magaalada Kismaayo wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubbaland oo ka hadashay howlgallo lagu xareynayay gaadiidka yaryarka ah ee maalmahanba ka socday magaalada Kismaayo Jubbaland oo agab caafimaad gaarsiisay degmada Doobley ee gobolka Jubbada Hoose gudoomiyaha waxbarashada Xudur oo ka hadlay xaaladaha waxbarasho ee degmadaasi iyo dawladda Turkiga oo qorsheynayso inay yeelato dastuur cusub qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan kuna dhageysan doontaan ay ku jiraan ciyaarihii laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub marka la ismaqal wanaagsan saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan waxaanu ku bilaabaynaa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in magaalada Muqdisho ay ku soo kordheen waxyaabo lid ku ah amniga isla markaana ka soo horjeeda diinteena Islaamka iyo sidoo kale dhaqankeena suuban wasiirka wasaaraddaasi Sheekh Cumar Cali ayaa sheegay in magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ay ku soo kordheen dhalinyarada isticmaasha maandooriyaha xitaa waxa uu sheegay in isagu indhihiisa saaray dad ama dhalinyaro maandooriyaha ama daroogada u isticmaalay qaab dureen ah waxaana dhammaan hay'adaha amniga ee ka howlgala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka uu faray in wax badan ay ka qabtaan arintaasi ka wasaarad ahaan ay diyaar u yihiin in ay garab siiyaan dhammaan cid walba waxaan arkaysaa ay koonto degeen laba wiil luuq istaageen midka kale oo wax ku duray ana indhayga saar waa daroogo waa fawaaxish waa munkar in laga hortago u baahan hoteelada qaarkood waa ognahay waxaa soo baxay muddooyinkan saqdi dhexe markii la gaaro hoteello wax afkeena soo qaban ay ka socdaan wax la aqbali kara ma ah waddankan ummaddan waa ummad muslim ah waa ummad maaragtay min alajdaad ila alajyaal aabbayaal ilaa xilligan ummad muslim diinta islaamka ku soo barbaarta waa ma aqbali karna marka sida hadda ay wax ku socdaan lama aqbali karo dhallinyaradaas cid kasta ee aragtahay ha u caqli celiso cidda aragtahay ha soo gaarsiiso goobaha ugu dhow waa wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug waxaa maalmahan ugu dambeeyay ka socday howlgallo lagu xaqiijinay amniga oo ay wadeen ciidanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee ka howlgala deegaanada dowlad goboleedkaasi Galmudug gaar ahaan gobolka Mudug deegaanka Ceeldheere waxa uu ka mid yahay deegaanada dowlad goboleedkaasi waxaana lagu daabulay ciidamo aad u fara badan oo military ah waxaana hogaaminaya saraakiil sarsare oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan si ay u xaqiijiyaan amniga degmadaasi iyo deegaanada kale ee ku teedsan oo dhawaan ay la wareegeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida fadhiga Galmudug ayaa sheegay in ciidamada looga baahan yahay ilaalinta amniga shacabka ku dhaqan deegaankaasi hadda la geeyay oo ay u baahan yihiin inay helaan daryeel dawladnimo waxaad joogtiin magaalooyin meel agtooda joogtiin dada idinku jiifa jooga magaaladan hadda aan joogno iyo magaalooyinka kale oo ka agdhow waxaan rabnaa haddaadan horu ogeyn inaad hadda ogaato maxaa jira la xisaabtana ka furan maxkamadeed amar diidada taliyaha ee ku aadan ciidanku inay ka diidaan sharciga mamnuucay ku tahay qaadashada amarada taliyuhuna waajib muqadas ah ee ku aadan habka dawladeed waxaan rabnaa asgari qaranaad tahay waxaad haysato dhan macallafahaagu qaran waay taliyaha ku hogaamiye ee sharciga kugu hogaamiya ee taliya ku ahna awaamirtiisa inaad raacdo waajib muqadas ah magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka Jubbaland waxaa lagu qabtay kulanka golaha amniga ee dowlad goboleedkaasi oo iyagu markaasi bishiiba hal mar lagu qabto magaalada Kismaayo waxaana looga doodaa oo waliba looga hadlaa xaaladihii ugu dambeeyay amniga deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubbaland waxaana toddobaadkan shirka ka qayb galay
qaybta midowda Afrika ee AMISOM ee ku sugan Jubbaland oo xaalado COVID-19 dartiisa aanan kaga qayb galin kadib markii wejigiisa saddexaad uu dalka la sheegay inuu ku soo bilowday. kulanka golaha wasiirada ama golaha amniga dowlad goboleedkaasi Jubbaland waxa uu gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedkaasi Maxamuud Sayid Aadan waxaana goobjoog ka ahaa ku-xigeenka labaad Cabduqaadir Sheekh Maxamuud oo isagu qayb ka ahaa golaha amniga waxaana sidaas oo kale iyagana qayb ka ahaa golaha wasiirada oo qaybtood ku jira golaha amniga waxaana siyaabooyin kala duwan looga hadlay waxyaabaha diiradda lagu saari doono toddobaadka soo aadan ama bisha soo aadan waxyaabaha la qaban doono. markii uu kulanka soo gabagaboobay kadib afhayeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedkaasi Jaamac Axmed ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu faahfaahiyay waxyaabihii looga hadlay shirkaasi. sidoo kale shirka waxaa qodobka afraad ee ajendihiisa uu ahaa in uu diyaar garowga dhaqdhaqaaqyada cadowga lala socdo isla markaana hay'adaha kala duwan ee ciidanku heegan ku jiraan qodobbeena ka ahayd shirka. qodobka ugu dambeeya ee shirka looga hadlay wuxuu ahaa in dib u habeyn iyo sidoo kale bannayn lagu sameeyo wadooyinka halbowlaha ah ee ku xiran magaalada Kismaayo deegaanada ay joogaan ciidamada sida deegaanka Baarsanguuni iyo Kismaayo deegaanka Cabdalla Biroole iyo Kismaayo wadooyinkaas oo lagu sameyn doono nadiifin dhanka dhirta ah sidoo kale ammaankoodana la sugi doono si ay ugu nabad galaan ciidanka iyo shacabka. shirka ayaa madaxweyne ku-xigeenku inta socday waxa iyo golahuba ay dhammaan ummadda muslimiinta ugu hambalyeeyeen sanadka cusub ee 1443 oo maanta bishay. xogaha kale ee shirka la iskula wadaagay inta badan xoga amni bay ahaayeen hay'adaha ay khusaysta amniga ayaa loo gudbiyay. waa Jaamac Axmed afhayeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedkaasi Jubbaland ayuu kaasi ahaa. isla wararka Jubbaland aan ku guda jirnay wasaaradda amniga ayaa iyadana war ka soo saartay howlgallo kala duwan oo maalmihii ugu dambeeyay ka socday magaalada Kismaayo kuwaas oo lagu qabanayay gaadiidka raaxada ah ee yaryarka ee takaasida ee dadka qaarkiis ay ku shaqeystaan. caqabado kala duwan ayaa ka dhashay kadib howlgalladaas ay sameeyeen ciidanka dowladda gaar ahaan kuwa maamulka Jubbaland ee ay ku baadigoobayeen takaasida yaryar ee ka howlgala magaalada Kismaayo. wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedkaasi ayaa warbaahinta la hadlay oo xafiiskiisa kula hadlay waxaana uu sheegay in ujeedka ugu weyn ee laga lahaa uu ahaa in la xaqiijiyo amniga guud ee magaalada Kismaayo iyo sidoo kale kala ilaalinta zaxmadda magaalada Kismaayo ee caasimadda dowlad goboleedkaasi Jubbaland ku meel gaarna u ahna xarunta gobolka Jubbada Hoose. waxaana dhinaca kale uu tilmaamay in wasaaradda ahaan ay wax badan ka qaban doonaan ayna sameyn doonaan kambaniyo tagaasida iyagu markaasi si shuruuc loogu sameeyo ay iyagu markaasi sameyn doonaan waa sida uu sheegay wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedkaasi Jubbaland. iyadoo ujeedadu tahay in la habeeyo oo nidaam darrida Soomaalidu ay iska baratay hadda 30 sano u dambeysay in la habeeyo oo loo sameeyo qaabkii hadee takaasidu u shaqeyn jirtay adduunka laga yaqaanay marka shuruudihii iyo wixii ay ku shaqeyn lahaayeen wasaaraddu ay dejiso. dabcan haddana waa loo qeybiyey waxyaabaha laga rabo kambaniga raba inuu tagsiyeeyo. saas darteed dadku waxaan rabnaa inay fahmaan in nidaamku uu iyaga dan u yahay oo uusan dan u ahayn. waxaan ogahay baabuur fara badan oo tagsiya lagu bilaabay inay hadda burbureen. isla wararka Jubbaland inta aynu ka bixino ku dhawaad 10 sarkaal ayaa loo tababaray ilaalinta iyo sugidda amniga doorashooyinka dalka oo xilligan ka socda deegaanada dowlad goboleedyada dalka qaarkoodna ay hore uga soo dhaceen sida Jubbaland iyo sidoo kale Koonfur Galbeed Soomaaliya. kuwa qaarkoodna ay hadda ku jiraan qabaqaabadii loogu qaban lahaa doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kadibna ay xigi doonto xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo gabi ahaanba deegaan doorashadooda laga soo dooran doono. dhinaca kalena markii tababarkaas uu soo gabagaboobay warbaahinta waxaa la hadlay afhayeenka ciidanka booliiska dowlad goboleedkaasi oo isagu sheegay inay ka faa'iideysteen 10 sarkaal ee ka qayb gashay ayna ka qayb qaadan doonaan sugidda amniga goobaha lagu qabanayo doorashooyinka maamulkaasi Jubbaland. doorashadii aqalka sare ay bilaabatay meeshii ugu horreysay ay ka bilaabateen hadda halkan ay noqotay dowlad goboleedka Jubbaland nasiib u yeelatay inay albaabka u fudho Soomaaliya doorashada isla waqti ahaantaas يعني ساكي سراكيشان أو توابر قادنية habkii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen maamuuska kala dambeynta ilaalinta amniga iyo borotokolka habraaca doorashooyinka oo ay amnigooda sugi doonaan insha Allah tababarkaasoo muddo hadda gaaban oo 5 bariyo u socday wuxuu ugu soo dhammaaday si wanaagsan iyagoo uga faa'iideystay aan rajaynayno in ay dib bulshadooda ugu shaqayn doonaan in ay gaarsiin doonaan qaybaha kale tii cutubada kala gedisan ee booliiska.
markan haddii aynu eegno wararka caalamka saaxiibayaal turkiga waxa uu qorsheenaya in dastuur cusub uu yeesho kaasi oo dadweynaha muwaadiniinta u ogolaanaya iyo sidoo kale baarlamaankaba in ay iyagu xilka ka qaadaan wasiirada wadankaasi turkiga kadib markii dhawaan uu sheegay madaxweynaha wadankaasi in laga soo gudbay waxyaabihii awoodda halka qof ku koobneed islamarkaana hal qof oo keliya xilka uu ka qaadayay wasiiro ama wasiir iyo sidoo kale wax la mid ah wararka kale ee ciyaaraha haddii aynu markaan eegnana waxaa socda ciyaarihii saaxiibtinimada ahaa oo laga ciyaaraya horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub qaarkood ayaa iyagu martigelinaya halka kuwa kalena ay iyagu markaasi ciyaarayaan home iyo sidoo kale away waxaa ciyaarihii saaxiibtinimada ee dhacay ugu soo horeeyay labada kooxood ee lagu kala magacaabo Tottenham Hotspur iyo kooxda kubadda cagta ee Arsenal ciyaar aad u xiiso badan ayaa dhexmartay waxaana ku soo idlaatay 1-0 oo ay ku badisay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Tottenham Hotspur oo xilligan ciyaaryahanka kabtanka u ahaa Harry Kane lagu soo waramayo in uu ka tagayo ciyaaraha kale ee xigay ama kooxaha kale ciyaar waxaa kamid ah kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Feyenoord iyo kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid 2-1 waxaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid isla sidaas oo kale Liverpool ayaa la ciyaartay Atletico Bilbao ciyaar aad u xiiso badneed oo Liverpool loo saadaaliyay in ay badanaysana waxay ku soo idlaatay bareejo oo 1-1 ah ayay labada kooxoodba wada galeen isla sidaas oo kale waxaa jiray ciyaaro kale oo ay wada ciyaareen kooxaha waxaana kamid ahaa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo la ciyaartay kooxda AC Milan ciyaartoodana bareejo ay ku soo idlaatay oo eber ay labada kooxood wada galeen ciyaarta ugu dambeysay waxay ahayd ciyaarta u dhaxeysay Parma iyo kooxda kubadda cagta ee Inter Milan ciyaar aad u xiiso badneed isla markaana weerarada labada dhinac ay ku soo bandhigeen qaab ciyaareed cajiib ah ayaana dhexmartay waxaana ku soo idlaatay eber iyo 2 oo ay ku badisay kooxda kubadda cagta ee Inter Milan oo xilligan ka dhaqaaqaya xidiga ay doonayso kooxda kubadda cagta ee Chelsea ee Romelu Lukaku guud ahaan intaas ayaa jeclaan ku hakiyo barnaamijka ama wararkii dunida anigoo guuxa soo saar halkan idin kala socodsiinayay kaamirada Abuukar Cali Cadaabe ayaa ka qaabeynay intaanu ku kulmi doonno warkankiisa xigana waxaan idin kaga tagnaa isma dhaafno